abaaraha soo noqnoqday ee ka jira gobolada dalka ayaa saameyn gaar ah ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan miyiga deegaanada Galmudug. Abaaraha ayaa sababay cunto yari iyo biyo la'aan baahsan kadib markii la waayay roobabkii la sugayay labadii sano ee la soo dhaafay. Arda Maxamuud oo ka mid ah dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa sheegtay in xoolihii ay ka dhamaanayaan hadda ay wajahayaan xaalad degdeg ah. nolosheen waxay ku tiirsanaa jirtay xoolaheena abaara heshay soo noqotay abaarta soo noqotay saameyn badan ay ku yeelatay hadda ayaga la biilaa iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa dadka iyo dunyada hadda waxa ugu daran ay wajahayaan waxay tahay biyo iyo cunto la'aan baahsan. Sayna Cabdullaahi Siyaad oo ka mid ah dadka deegaanka Beerliibaan Galle oo qiyaastii 50 kiiloomitir u jira magaalada Dhuusamareeb isla markaana ka faa'iideystay gurmad biyo dhaamina oo ay sameeyeen dhalinyaro isku xilqaamay ayaa sheegtay in $150 ay ku baxdo booyada biyaha markii laga dalbo magaalada Dhuusamareeb. Saynab ayaa sheegtay in hadda deyn badan lagu yeeshay qoyskeeda maadaama xoolihii ay ku tiirsaneen noloshooda ay dhamaanayaan qaarna la biilayo. wax yar oo adiga xawaasan dareeriso adiga waxa way nafta ku waardiyeey 3 bari hadda aniga sadda tiri barka camal xoolahan hadda aan ku qiyaasay 3 bari ugu badnaan 4 bari ka feeyda dadkii naga sii xoolo badan naga sii culays badan hadde waa adiga 2 bari waa. Cabdiraxmaan Xasan Cabdullaahi oo ah macallin dugsi Quraan u haya 13 qoys oo loo shubay hal booyada ayaa sheegay in maanta oo kaliya ay ka cabi karaan booyada barina ay ka ooman yihiin. xooluhu waxay ku noolaayeen dhirta dadkuna waxay ku sii noolaayeen xoolaha dhirta ruuxadeedu waxay ku nooleed madarka saas darteed madarkii ayaa yaraaday dhirtii xoolo xumaatay xoolihii haddana sii xumaaday dadkii ay xoolo markaa maray. Farxiye Ciise Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada gurmadka biyo dhaaminta uu sameeyay dadkan tabaalaysan ayaa sheegtay in karaankooda uu ahaa in 6 booyadood uun ay gaarsiiyaan ku dhawaad 100 qoys oo ku nool deegaanada Laas oo Xunshaalo iyo Beerliibaan Galle oo dhamaantood dhaca miyiga fog ee caasimadda Galmudug Dhuusamareeb oo ay saameeyeen abaaraha isla markaana aan awoodin inay iska bixiyaan lacagta ku baxaysa biyaha. dad aad ay mataqaana abaarta u saameysay ama xoolo ay aad abaarta u saameysay ama dhulkiyo si guud nabaad guur ku dhacay oo kuleylka iyo waqtiga jira macnaha oo saameyn weyn ku yeeshay baa soo aragnay. Leila Ali Cabdi Bilan Media deegaanka Xunshaalo.